halkan waxaa inta wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa kamid ah mas'uuliyiin waaweyn oo dawladda u shaqeynaya oo ku biiray al-shabaab iyo qorshaha halista ah ee Axmed Madoobe uu ka fulinayo gobolka Gado oo socda dawladda oo go'aan ka gaartay golaha ammaanka kashifaada hal arin oo dawladda ay kaga adkaanayso Puntland iyo Siciidani la yaab ka dhacay magaalada Gurceel iyo niman badan ay shukaansadeen oo dumar ay u maleynayeen oo la qabtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo arin uu ka walaacsan yahay runta ka sheegay iyo qaraabadii Baghdadi oo markan la xirxirayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan xubinta wararka haddii aad ku cusubtaa fadlan subscribe saar ku dhufo gambeelka si aad u noqoto daawadaha koowaad markaynu wararkeena baahino aynu ku bilaabnay mas'uuliyiintii ugu badnaa ee Jubbaland ayaa hal mar waxay ku biireen al-shabaab sida ay faafiyeen warbaahinta al-shabaab afar xubnood oo ka tirsan mas'uuliyiinta Jubbaland ayaa dhankooda ku biiray al-shabaab deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gado ayaa la sheegay inay tageen gudoomiyaasha xaafadaha 7-8 iyo ku-xigeenadooda magaalada Balad Xaabo Cabdiweli Iftiin Barrow gudoomiyaha xaafadda 7 ee Balad Xaabo Maxamed Khaliif Xasan gudoomiyaha xaafadda 8 ee Balad Xaabo Xuseen Sahal Aadan gudoomiyaha ku-xigeenka xaafadda 7 ee Balad Xaabo Xuseen Jibriil Ibrahim waxa uu ahaa gudoomiyaha ku-xigeenka xaafadda 8 ee Balad Xaabo ayaa la tilmaamayaa inay ku biireen al-shabaab ilaa iyo haatan ma hayno war sax ah oo dhanka Jubbaland oo ay kaga hadlayaan mas'uuliyiintan xaafadaha Balad Xaabo ee dhanka al-shabaab ku biiray sida la sheegay waa arin la yaab ku abuurtay dadka deegaanka oo markan cabsi muujinaya sidoo kalena saraakiisha Jubbaland ee ku sugan isla Balad Xaabo ayaa cabsi weyn dareemaya iyadoo gudoomiyihii Balad Xaabo ee Jubbaland uu xiran yahay dawladda Itoobiya lama oga qorshahan halista ay waxyaabaha ay ka damacsan yihiin iyo sababta keentay in xilligan intaas oo gudoomiyaal mar kaliya ku biiraan al-shabaab Jubbaland waxay dagaal adag kula jirtaa al-shabaab sidoo kalena dagaal siyaasadeed waxay kula jirtaa dawladda Soomaaliya iyo ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Gado Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la tilmaamayaa inuu arrintan aad kaga fajacay sidoo kalena mas'uuliyiinta kale ee Jubbaland ee gobolka Gado ayaanan weli ka hadlin arrintaas haddaba iyadoo ay taasi jirtana madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland oo maalmahan safaro kala duwan ku marayay degmooyin ka tirsan gobolka Gado waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee kuwa amisom ee ku sugan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado kulanka ayaa waxaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo xasiloonida dadka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in saraakiisha ciidamada iyo bulshada loogu baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan sugidda amniga dhinaca kale odayaashii waxgaradka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ayaa diiday inay la kulmaan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan odayaashu waxay sheegeen in maamulka Jubbaland uu ka baxay ballamo hore uu la galay waxaana ay cadeeyeen in waxgaradka aysan la kulmi doonin mas'uuliyiinta ka tirsan Jubbaland degmooyin ka tirsan gobolka Gado waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed iyadoo ciidamo taabacsan Jubbaland dhawaan ay cadeeyeen inay ku biireen dawladda Soomaaliya maamulka Jubbaland ayaa dawladda dhexe waxay ku eedeysay inay burburin ka wado gobolka Gado iyadoo adeegsanaysa ciidamo ka tirsan Itoobiya sida hadalka ay u dhigeen waxaana xigtay dacwad ka dhan ah Itoobiya oo maamulka Jubbaland u gudbiyay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Wan Maxamuud Sayid Aadan ayaa hadda waxaa la tilmaamayaa in qayb muhiim ah uu ka hirgeliyay qorshihii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu soo diray oo ahaa in shacabka gobolka Gado uu soo raaligeliyo maadaama uu beel ahaan halkaas uu ka soo jeedo balse qayb kale oo muhiim ah oo Ceelwaaq degta ayaa ka soo horjeeday inay la kulmeen madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland arrintaas oo hadda walaac ku abuuraysa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xaaladda Jubbaland ayaa sii cakirnaanaysa iyadoo sidoo kalena Jubbaland la aaminsan yahay in deegaano badan dhanka shabaab ay kaga maqan yihiin sidoo kalena hadda maamulo badan ay ka goosanayaan oo dhanka dawladda ay ku biirayaan ayaa wararkaas markaynu ka baxnana fila Soomaaliya ayaa ka hortimid go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhaleeceysay go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee uu 15 bishii November ku sii kordhiyay xayiraadii hubka ee muddada saarneyd Soomaaliya la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Cabdisiciid Maxamed Cali oo qoraal soo dhigay barta Twitter-ka ayaa cunaqabateyntan uu meelmariyay golaha ammaanka ku qeexay mid xanibaysa awoodda ay Soomaaliya ku heli karto hub laga maarmaan u ah in laga adkaado argixisada Soomaaliya waxay dhisaysaa ciidamo awood leh oo naftooda u horaya si ay ula dagaalamaan argixisada isla markaana u badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed ay yiri Cabdisiciid ayaa dhinaca kale eedayn u jeediyay qaar ka mid ah saaxiibada Soomaaliya isagoo yiri saaxiibada qaarkood waxaa cad inaysan xiiseenayn inayna taageeraan isla markaana ayna qalabeeyaan ciidamadeena balse ay abuurayaan caqabado iyo xanibaado ayagoo isla markaana ugu baaqaya inaan wax badan qabanno waxa uu amaanay qaar ka mid ah dalalkii ka aamusay codeynta ee la saftay Soomaaliya oo uu ku qeexay kuwa doonaya inay garowsadaan inay caqli ahaan qalad tahay in ciidamada xoogga Soomaaliyeed loo diro dhufeysada dagaalka ayagoo aan haysan hub iyo qalab
dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay sii wadi doontaa inay samayso wax kasta oo ay ku difaacayso nafteena iyo ciidankeena hala taageero ama yaana la taageerin yiri golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Jimcihii wuxuu sanad hor leh ku daray qaadista qayb kamid ah cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyadoo sanadkan lagu kordhiyay xayiraadda waxyaabaha kiimikooyinka ee loo adeegsaday saameynta waxyaabaha qarxa 15 xubnood ee golaha u codeeyay 12 ay ogolaadeen in cunaqabateynta lagu kordhiyo halka Shiinaha Ruushka iyo Equatorial Guinea ay ka aamuseen cunaqabateyntan ayaa socon doonta ilaa November 15keeda 2020 hagaag daawadayaal kashifaadda hal arrin oo dowladda Soomaaliya ay kaga adkaatay Puntland ayaa markan fiirinayna dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shir ku qabanaysa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland xilli maamulkaas iyo dowladda aysan waayihii dambe isku wanaagsaneen wasiirka ganacsiga Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan iyo xubno ka tirsan wasaaraddiisa ayaa u dhoofay Garowe waxaa wasiirka ka furi doona magaalada shirka wada tashiga sharciyeedka shirkadaha dalka muddo 2 maalmood ah ayaa loo qorsheeyay inuu kulan ka socdo isla markaana ay ka qayb galaan mas'uuliyiin ka socda dowlad goboleedyada dalka isniinta ayuu shirka furmaya waxaana cadaadis la saaray Puntland kadib markii ay ogolaatay qabashada shirkaas Garowe ka dhacaya isku soo dhawaanshiya ayaa sidoo kale waxaa la rabaa in laga dhex abuuro Puntland iyo dowladda federaalka waxaana wasiir Cabdullaahi uu rajo ka qabaa in la xaliyo mugdiga siyaasadeed ee ka jira maamulka Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya geesta kalena siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay arin uu ka walaacsan yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in xilligan ay walwal iyo cabsi ka qabaan in dalka Soomaaliya ka dhacdo doorasho loo dhan yahay waxa uu sheegay in walwalkaas uu ku yimid waqti yar oo dowladda Soomaaliya madaxdeeda u haray haddana aysan muuqan qorshe ay madaxda dowladda u dejiyeen doorashada soo socota waxaan qabnaa walwal doorasho waayo waqti sanad iyo wax yar ka harsan madaxda dowladda welina kalena lama wadaagin dadka Soomaaliyeed sida doorashada ku dhici karto noomana muuqato in qof iyo cod dalka ay ka dhici karto yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur isagoo la hadlayay idaacadda VOA ayuu Cabdiraxmaan sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya oo qorshahoodu yahay inay sameeyaan muddo kororsi taasina ay keentay walwalka dhinaca doorasho oo ay qabaan waxuu dhanka kale ugu baaqay madaxda dowladda Soomaaliya inay joojiyaan dagaalka siyaasadeed ay ku hayaan siyaasiyiinta ka aragti duwan iyo maamul goboleedyada kala dhaxeeya talada dalka aysa loona baahan yahay in madaxda dowladda iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada labada aqal ee ka wada tashadaan qaabka ay u dhici lahayd doorashada hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu ku soo aadayaa xilli siyaasiyiin badan oo ay kamid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee madaxda dowladda ku eedeeyeen inay qorsheynayaan muddo kororsi arrin la yaab leh maanta waxay ka dhacday magaalada Gurceel ciidamada dowladda Soomaaliya waxay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ku qabteen nin la sheegay inuu xirnaa dharka dumarka ciidamada dowladda ayaa xalay ninkaas ka qabtay gudaha magaalada Gurceel kadib markii laga shakiyay qaabka socodkiisa ciidamada dowladda oo ninkaas ku xiray saldhigga booliska Gurceel ayaa waxa ay wadaan baaritaano ku aadan waxa ku qasbay inuu dharkaas soo xirto Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan Gurceel ayaa sheegay in ninkan ay u maleynayeen inuu kamid yahay dadka deegaanka Maxamed Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa wax lala yaabo waxa uu ku tilmaamay sababta uu ninkaas u soo xirtay dharka haweenka hase yeeshee wax kasta ay kala cadaan doonaan kolka la soo gabagabeeyo baaritaanka socda Maxamed Cabdi waxa uu xusay in aanay ninkaas lagu qaban wax xuba marka laga soo tago inuu labisnaa dareyska dumarka talaabadan lagu qabtay ninkaas ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli taliska qaybta 21 ee ciidanka xoogga dalka uu Jimcihii gobolka Galgaduud kaga dhawaaqay guluf ballaaran oo ka dhan ah Al-Shabaab waa markii ugu horeysay magaalada Gurceel lagu qabto nin soo xirtay dareeska u gooniga haweenka inta taariikhda ay xusayso ugu dambeyntiina 4 qaraabo dowladda Baghdad ayaa nolosha lagu qabtay 25 kamid ah qaraabada hogaamiyihii la dilay ee Daacish Abu Bakr al-Baghdadi ayaa la qabtay xilli xabsi loo taxaabay 4 kamid ah xubnahaas shakhsiyaadkan ayaa waxaa laga soo kala qabtay 4 gobol kadib howlgal qorsheysan oo ay sameeyeen ciidamada Turkiga dacwadooda guud ee ismaamulka Kirsar ayaa shaaciyeen 4 xiran ay xubin ka yihiin urur hawaysan walow uusan kala cadeyn mid ka yihiin Daacish ama al-Qaacida 12 kamid ah ayaa laga soo xiray Kirsar 5 waxaa laga soo qabtay Samson 3 waa Urdu halka 6 kamid ahna laga soo xiray gobolka muhiimka ee Sanliova baaritaano la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday 21 kamid ah in la tuhunsan yahay kuwaas oo 2 kamid ah caruur yihiin oo la soo musaafuriyay lagana keenay gobolada dhexe al-Baghdadi oo ahaa ninkii loogu doondoonista badnaa caalamka ayaa ku dhintay howlgal qorsheysan oo Mareykanka ka fuliyay waqooyi bari ee Suuriya sidoo Trump shaaciyay kooxda la magac baxday dowladda Islaamka oo xaqiijisay geerida Abu Bakr al-Baghdadi ayaa ku dhawaaqday amiirkeeda cusub kaasoo kamid ah golaha shuurada ee ISIS daawadayaal warkii aad xubinta wararka la socoteen waa naga intaas nabadgeno